إمك مثلاً إن أنت أنا قاعد دلائي إنجليز كي كل دلاتي حبضة في سوماليا لما تقارنوا ما أنت هدي ومدحوينه وسير هذا قبيل هيو because قبيل كي ذا كبضن وسير بالا سيريا أنا سوماليا ما نقول شيء وأنكر شيء وأنا كبر باري في سوماليا وأنك أقارنا ودن كينو وأنكر شيء because قبيل كي كبضن أيها ورسير الله سيريا horta taa dacwada ugu weyni waxay ku beeskaraysantaa tiina kaasi daba socdayo ahaa qabyaalada wax lagu qaybsanayo madaxweyne ka soo yimaadana wuxuu wax ku qaybinayaa qabiilkee ka badan bari markay ka baxdana day doonayna kaygo af Soomaaliga baan aqoon halka fadhiya ayay isagana lagu bedelayaa marka taasi waa dacwad ku socota beesha dhexe waliba سؤال كلنا وان قبايو إما كبرنا الكال فرديا وضيقي وكتشرو إن أنت سعديو كليا فرديا قول دي نوح صحي سادين كابا خلدن بالكهرباء وحي هيدين القيبسانو الله يلا بك دكتان إنك سؤالها قيبنا يعني أما ودمر نقضه أما يسقنا ما ركتي دو ودحيو مركا إذن كيبا قوله أغربتين يضحكوا الصحبان قيبسكي كبلاوي تعلفت الكيدلو وحق درجود marka deediko iga raaliha laakiin odaygan anigu mar walba dacwada ku qabsadaa waxaana inantaadoo nafka garanaynin ba because waxay ka dhalatay beesha dhexe ma aha inay aniga iga xaq badan tahay marka anigu waxaan soo jeedin lahaa beesha laftirkeeda dhexe baaba dee kala badan oo labada reer ugu waaweyn ama saddex reer ugu waaweyn ba ku celceshada iyaga laftirkooda in xaq loo qaado la yiraahdo war beesha arab ba maqan wartii ayuba maqan waatiir tarjaclaha maqan waatii sanbuurba maqan marka idinku ka soo dharagtaana adariska anagu aanu ka mid danayn xaq iyo xuquuqda ku leeyahay wadanka inaad tiraadaan iyagana waqtigoodii hala siiyo inta taa la helayana waxba idin socon maayaan waqtiga iska luminina